dhegaystayaal siyaalo badan oo kala duwan ayay ku dhalataa mahmahda Soomaalidu waxaana ka mid ah qayb dhan oo dugaagga iyo duurjoogta loo saariyo inay iyagu curiyeenna lagu been hawaaso marar badan ayaynu maqalnaa iyada oo la leeyahay waraabaa wuxuu yidhi abeesaa waxay tidhi rahabaa wuxuu yidhi gorayaa waxay tidhi biciid baa wuxuu yidhi dawacaa waxay tidhi iyo sheekooyin la mid ah waase la ogyahay dugaagga iyo duurjoogtu inaysan aadanaha kuwar ahayn oo af Soomaali iyo af kale toona aanay ku hadli karin iska daa inay mahmaaha ku curiyaan ujeedadu waxay tahay in murti lagula baxo waxna la isku tusaaleeyo taasina waa tabsuugaaneed aan Soomaalida ku ekayn ummado kale ay la wadaagto mar walba oo mahmaahda jaadkaana la adeegsanayana sheeko gaaban oo gogol xaar ah ayaa laga horraysiiyaa dabadeedna waxaa la israaciyaa magaca bahalka loo saarinayo iyo mahmaahdii afka loogu tiray si loo rumaystana Soomaalidu kolka ay sheekada oo kale marinayso waxay tixgelisaa dabeecadda bahalka mahmaahda la siinayo waxyaabaha ka suuroobi kara iyo fikradaha guud ee isaga ay bulshadu ka qabto haddaba dugaagga iyo duurjoogta ay Soomaalidu murtida kula baxdo waxaa marahayga ugu mahmaah badan dhurwaaga oo ah bahalka ay reer miyiga isugu badiyaan wuxuu ka mid yahay dugaagga tirada yar ee hilibka mooye aan oomati kale ku hambaasin geedahana doog iyo abaartoona aan afka saarin sidaa darteed waa bahal mar walba xoolaha reer miyiga isha ku haya oo eebbaweyne saami ugu daray noloshiisuna ay ku xiran tahay abaar iyo aaranba kama uu fogaado halka ay xooluhu daaqaan iyo xeryaha habeenkii lagu soo xeraysto had iyo jeer isaga iyo xoolo raacatada waa u halgan maruu isagu raayo oo uu neef kala tago iyo mar ay iyagu raayaanoo ay ka dhigtaan ee waxadooda ay ka ceshadaan isu dhowaanshaha dhurwaaga iyo Soomaalida reer miyiga ah waxaa ka abuurmay fikrada bahalka ku saabsan oo maanka bulshadeenni hore ku samaysmay giddigoodba waa fikrada xumi mooye aan wax wanaag ah lagu arag xagga dhaqankiisa waxay ku tilmaamaan inuu yahay wax ay gunnimo dilootay oo hunguri xumo diihaal joogtaa iyo quusli'iba lagu ibtileeyey dhaqankaas aysan jeclayn waxay Soomaalidu garab dhigtaa dhaqan gobeed ay ku tilmaamaan libaaxa oo si walba waraabaha uga dabeecad gedisan marka hore inuu dhab u gaajoodo mooye libaaxu xoolaha iskama laayo halka uu dhurwaagu markay u dagtaanba uu ka warjeefo marka labaad haddii uu ka dhergo libaaxu raqda kuma dul nagaadee uu ka tagaa wuxuu u daayaa dugaagga kale ee duleedada halka uu wax ku cunaayo ka soo dhawugaya dhurwaaguse xataa haddii uu dhergo hilbaha hoos yaal kama u ag dhaqaaqo raxantiisa mooye cid kale wax ugama ogolaado ilaa uu lafaha jajabsadana kama uu dul tago marka saddexaad neefuu isagu disha mooye libaaxu baktiga wax ma moodo umana hawoodo dhurwaaguse waa xaabqaad aan bakti iyo xalaali u kala socnayn oo wixii uu ka soo kor dhacaba ay gaaja u qabato calooshana ku hubsada dhaqankaas gunnimo ka sokow xagga abuurtana dhurwaagu Soomaalida waa u astaan foolxumo socodkiisa midabkiisa iyo addimadiisuba waa la siloon yihiin ragga kii hunguri xumo ama foolxumo xagga oogada ah loo qarinayana magaca bahalkaas ayay kiisa ku laraan markaas bay hebel dhurwaa ama hebel waraabe ku naanaysaan aqoonta dheer ee ay Soomaalidu dhurwaaga u leedahay waxaynu ka garan karaynaa magacyada iyo naanaysaha tirada badan ee ay u taqaan inta aanu hubno bahalkaasi waxa uu af Soomaaliga ku leeyahay labada magac ee kala ah dhurwaa iyo waraabe ha yeeshee waxaa u dheer naanayso 9 gaaraya oo dhammaantood tilmaan ka bixinaya sida uu abuuran yahay waxay kala yihiin qaariyare huluul ciira dambas cumar luglaawe qaar xabaal cagey dhuruq dhaylo ciira muruqla iyo lug dhammaajo naanaysahaas waxaa qaarkood laga heli karaa hawraar dhaqameedyada reer miyiga Soomaalida ay wada yaqaaniin
iyo maansadii hore labadaba saddexda kale ah cagey huluul iyo cumar luglaawe aan haddaba murtida soomaalida ka baadi goobo meelaha ay kaga jiraan idindul joojiyo dabadeedna intaan cagay ka bilaabo aan idhaahdo jiilaalka kolkay tahay oo xoolaha qoyska reer baadiyaha ahi ay nacfi yareeyaan ayay hooyadu caanaha carruurta u tashiishaa ay ku dadaashaa si siman inay ugu qaybiso oo aan midkoodna qadin xerada ayay gashaa iyada oo sidata haruubadii ay ariga ku lisi lahayd yaryarkuna meel aan oodafada ka fogayn ayay isa soo tubaan in fadhida iyo in taaganba waxay kala hororsadaan kolba haruubka ay soo taagto ee ay caanuhu ku jiraan isku dabeecadsa ma ahee carruurta ku kamida ayaa kolkaas qaylo afka labadii yeera oo oohin iyo dhulgalgalasho isku dara isaga oo hooya caana isii ku celcelinaya ma wuxuu ka baqayaa inay ilowdo ma hamuun gorgor buu leeyahayoo sidaaniba waa u dabeecad mase gaajo xun baa ka dhawaajinaysa intaba u maleh waxa ugu wacanba cabbaar hadday iska dhagatirto ayay marka dambe xaggiisa u soo jeedsataa oo habaar aan hoosta jirin oo gacal cuna intay ku tuurta ku tidhaahdaa iga aamus caana kuma hayay cantariigsa oo cagay ka bariye waaba cagay iyo caano waa caana waa sarbeeban saa cagay iyo caano isma galaane siday cagay ugu naanaysaan ayay soomaalidu dhurwaaga huluulna ugu naanaysaan taasina waxay ka muuqataa heesaha dhaqanka middood garabnimadii geeljiruhu kolka ay geelasha carraabinayaan ee ay xedhiyihiisa ku wadaan way u heesaan markaas bay tubtu u macaanaataa heesahaas ay ku carraabin jireen ayaa waxaa ka mid ahayd tu ay odhan jireen horaay bahalkii huluul lalahaa yuu ku heerine horowga carrow bahalka huluul lalahaa ee hasha lagu cabsiinayaana waa dhurwaaga naanaysta saddexaadi waa cumar luglaawe darwiishkii gabyaagana ahaa ee la odhan jiray ismaaciil mire ayaa beri gabay tiriyey laba dhinac oo colowday ayuu mid ahaan si dadban ugu garbaynayay dabadeedna dhinacii uu rabay inuu u heeliyo ayuu libaax ku tilmaamay kii uu ka jirayna wuxuu sarbeeb ahaan ugu sheegay cumar luglaawe oo sidaan soo sheegay ka mid ah naanaysaha uu dhurwaagu leeyahay wuxuu yidhi curdadkiiyo juglaydiiyo haddaad cagadayda u yeedho oo habar dugaag oo camiran cudud laguu siiyo maroodiga cawaarsaday hadduu ciidan kugu raaco walee cumar luglaawow libaax kama cod weynaatid dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inaan toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo